marka ugu horeysa waxaan doonayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man raa minkum munkaran falyughayyir biyadihi faman lam yastati' فباللسانه فمن لم يستطع فبقلبه هذا أضعف من الإيمان قد يدحم با waxay ka dhacday la ascaanood meesha la yiraahdo dad walaala oo muslimiina oo soo magan galay halka Soomaaliland in la kala qaaro hooyo iyo ilmaheed hooyo iyo wiilkeed qoys iyo hantidii oo 30 sanadood haystay meelay dawladnimada ka soo gashaan uma garanayo dawladnimadu dadka ma qixiso dawladnimadu dad taajiriinaha ceer kama dhigto dawladnimadu dad ladnaa dawladnimadu hooyiye ilmaheeda ma kala kacayso wixii halka ka dhacay wuxuu ka soo horjeeday dhammaan dastuurka Soomaaliland buu ka soo horjeeday xeerarka Soomaaliland buu ka soo horjeeday diinta iyo shariicada iyo muslimnimadu ka soo horjeedo waxaan baaraynaa waxaan leenahay dadka walaalaha ee gobolada kale ku nool war dadka ayaan la idin bahlay gelin masaakiinta ka digtoonaada reer Boorow waxaan arkayay ceeri gaabo oo fariinta qaadatay oo dadka saaraysan arkayay yaan dadka la idin bahlay gelin dadkaasi waa masaakiin guryahoogii dhibaato ka soo saartay ilaahayna man baata shabcaana wajaara jaayicu ilaa jambihi haddii ka warnaadoo dheregsan jaarkaaga ay ku gaajoodaan oo dad carruurtaadiiya maatidaadiiya laga kaxeeya magaalada oo goraya cawl iyo jidka ay ku umulaan waa la idin weydiin doonaa waxaan idiin sheegayaa magangelyadu waa shay weyn ninka magantiisa laga kaxaystaa sharaf male karaamo male aakhirana meel fiican kuma laha